عمليات استشهادي oo uu daba socday weerar inqimaasi ah ayaa ganinkii dambe ee maalintii shalay lagu weeraray hotel lagu magacaabo Cascasay oo ku yaala magaalada Kismaayo kaas oo hoy u ahaa madax xildhibaano saraakiil ergooyinka doorashada iyo gaalada ajaanibta ah ee ka howlgala magaaladaasi weerarkan oo ahaa mid si heersare loo soo abaabulay ayaa lagu daafuray camaliyad istishhaadi ah oo uu fuliyay haliyay ka tirsan guutada istishhaadiyiinta kadibna koox inqimaasiyiin ah ayaa u daatay dhismaha kuwaas oo dhameystiray haraadigi ka badbaaday qaraxa toogasho wadareedna ka bilaabay hotelka maamulka ashhadala dirarka iyo warbaahinada cadawga ayaa saacadihii ugu horeeyay ee weerarka isku dayay inay marin habaabiyaan bulshada isla markaana weerarka ku tilmaamaan mid laga hortagay oo fashilmay balse xaqiiqdu way ka duwaneed sida ay sheegayaan goobtana waxaa ka socday gumaad ay haliyada tawxiidka kala dul dhaceen madaxyaweynta kufriga ee hotelka deganaa inqimaasi Zubayr oo ahaa amiirkii hogaaminayay majmuucada qaaday duulankan barakaysan ayaa saacadihii ugu horeeyay ee weerarkaba u bishaariyay muslimiinta isla markaana meesha ka saaray sheegashooyinka cadawga isagoo tilmaamay inay dagaal kooban kadib gudaha u galeen dhismaha halkaasna ku laayeen cadawgii ku sugnaa afaafka hore ee dhismaha horta anaga murtadiin haddii horta ayaga ishaadiyo ay been sheegaan murtad kastoo baqdi horta islaamkana farxad bay u tahay sidii weeladiisa iyana waa laga tagaa ma garan gaal kastoo meeshan ka baqdi hadday ka been sheegaan xaqiiqada meeshan oo ay tahay caawiyaasho ilaahay subxaana watacaala agtiisana kama qarsami doonto mujaahidiinta agtoodan kama qarsami doonto hadda kale insha allahu tacaala meelihana iska sii joognaa haddana waxaa waaye wallahi daana kuuma sheegaayo way cararaayaan hadda haddii inta hal xabo kush aan ku siino wallahi inaan istaagin way cararaayaan binaanka ay taagan yihiin hadda waxyaabaha dan ila yaab badnaa oo maanta meesha aan ku arko waxaa kamid ah markii saas camaliyada ay u dhacday anagoo soo taqdumayno ayagaa noo malaynaya markaas horta markaasa wallahi danka ii sheegaan ku dheesmaan ku dhahay ma garat ilaahi subxaana watacaala wuu noo fudisay bismillahi tacaala hadda waxaan joognaa meeshii ayaan joognaa biidn illahi tacaala irida hore ayaa walaal oo aan jecelnahay ilaahi subxaana watacaala diintiisa aan isku barnaan habeen iyo wax lamid hadda marka insha allahu tacaala markii taas ay u dhaceen kadib waa ku taqdimnay ayagoo waxaan ugu tagnay oo maahi wixii oo walaalkii garaasanayo garaatay kadam kala ii sheegay mahal ii jiyo bakti barbadan iyo dhaawac barbadan meesha markii oo barxadii wixii kala carray anaga xataa aan soo marnay qorqof ma garan أربقه راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس طول المعركة زيات قدام والغمس haliyada inqimaasiyiinta ayaa toogasho wadareed ka bilaabay dhismaha isla markaana baaritaan qolqola ka sameeyay goobta waxaana intii uu howlgalkaas socday mujaahidiinta u soo gashay inay khaarijiyaan cadow farabadan oo ku dhumaalaysanayay qolalka kuwaas oo ay qaarkood nolosha ku qabteen ka hor inta aysan khaarijin amiirka majmuucada allaha ka aqbalay wuxuu ahaa haliyay fariid ah dagaalyahan ah kuna tilmaanaa karti iyo kaadsiimo wuxuu qaatay xeelado dagaal oo u sahlay inuu cadawga ku dheereeyo waqtiga dagaalka isla markaana khasaare ba'an gaarsiiyo gurmadkooda markii uu soo idlaaday howlgalka toogasho wadareedka wuxuu inqimaasiyiinta difaacyo ka geliyay jihooyin kala duwan oo dabaqyada daarta kamid ah si ay daaqadaha uga toogtaan cadawga isa soo abaabulayay iyo kuwii sii firxanayay ee dhoobnaa afaafka hore ee hotelka waxaana uu tilmaamay inay qanaas ku dileen cadow farabadan oo u badnaa ciidamada ammaanka ee maamulka ashhadala dirarka ee isku magacaabay Jubbaland annaga waxaan aragnay inta soo taqdimayna askar waan soo leynay kadam hadana rag oo mujaahidiin oo ma ramayt walaakin Allah rama gaalada ilaahay baa araysanaya rasuulaha inta dalka aan saaranahay waxa anaga aan niyadna aan dinay tira malahan wixii dambe aan kurina oo subo aan tirin lahayn ma garad wixii kullu meesha ay joogeen qolka waxay ku jireen wixii oo wixii anaga dhamaastirka waa dhintay waxay kalena ay banaanka soo tageen waxaa kaloo yaabay hadda nin as oo gaal qadaamiyo anaga gacanta ku diin oo maana banaanka ugu tagnaa oo meel uu manaa ugu tagnaa ma garad yaajin abo anaga gacanta ku ma garad ajaanibta cadaanka ah ee lagu laayay weerarka waxaa ku jiray kuwa reer galbeed ah halka sidoo kalena ila wareediyo iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta ay qireen in dadka lagu dilay weerarkaas ay ku jiraan muwaadiniin ka soo jeeda wadanka Shiinaha iyagoona tilmaamay in dhowr muwaadin oo ka soo jeeda wadanka Shiinaha ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka waxaa kale ku jira nin Chinese ah waxaa ku jira nin musharax ah oo xillo shuuriya ay dhaxaan dadku waa badan yihiin waxaa kamid ah
maxaan ku sanatare iyo xildhibaano iyo federaalka ah meesha joogay dhamaantood degnaa maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta Kenya oo taageero ka helayay cutubiyada ciidamada Mareykanka ee jooga Kismaayo ayaa xalay ilaa saaka dhoobnaa afaafka hore ee dhismaha waxayna sameeyeen isku dayo dhowr ah oo ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan weerarka balse Allah fadligii mujaahidiinta ayaa jilibka u aastay isku dayadaas isla markaana afka ciida u daray cadowga Allah mujaahidiinta ayaa xalay fashiliyay ugu yaraan 10 weerar oo uu cadowgu ku doonayay inuu ku galo gudaha hotelka kuna soo badbaadiyo dadkii go'doonsanaa هم العمالة أفركه في الأرض عزة يدعس في الأرض عزة يدعس lixdii aroornimo ee saakay ayuu maamulka ashhaadala dirirka ee Jubbaland ku dhawaaqay in la soo abjaray weerarka rasaastuna istaagtay balse beentaas ayaa durbaba laga daba tagay markii dadka reer Kismaayo ay maqleen rasaas xoogan oo markale ka soo dhaceysay gudaha hotelka taas oo ahayd isku day kale oo uu sameeyay cadowga laguna jabiyay salaadii subax kadib waaga markii uu bariyay weerarkuna galay maalintii labaad waxay inqimaasiyiintu sheegeen inuu cadowga soo qaaday weeraro xoogan oo dhowr jiha ah balse Allah fadligii ay ka hortageen jab xooganna lagu gaarsiiyay cadowga Allah inqimaasiyiintu waxay sheegeen inay ka hortageen ugu yaraan 3 weerar oo uu soo qaaday cadowga midkii ugu dambeeyayna uu dhacay barqanimadii maanta xilli saacadu ay ku beegneed 3 saac kolkaas oo ay halyeeyadu wacdaro ka muujiyeen fagaaraha goobtana ku laayeen askar fara badan oo isugu jirta murtadiin iyo Kenyaati kulli insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waan ku nabadgeliyay meeshii maanta arday saan kula hadlay anaga gacanta ku hayno gaaladii iyo macnaha isla Kenyaati Kenyaati wax walbaba way iska keeneen taa hadii noqon lahayd hadii saaro noqon lahayd kulli insha Allah ta'ala majmuuco oo ilaahay subhanahu wa ta'ala jillidiisa kamid ayaa afka ciida u dartay gaaladii dhan ka dambeeyay qolalkii iyo wixii hadda saaka ugu dambeeyay taamin nolosha ku qaban waana jinni darag qolka dhaxdiisa ku dhacrin asoo meel iska jeeso dhuumanayo waan waraysanay markaas adiga malahan ka dhiman darag kulli insha Allah ta'ala muslimiintu han ugu bishaareynaya in gaalo fara badan oo meesha ay ku baaba'een wixii dhismo ahaa iyo wixii difaac ay lahaayeen ay dhulka ka hoos mareen ku dhigaad xalay wallahi ma xisaabi karo ku dhigaad waxa ay soo qaadeen 10 hadii ay ka yareen adii 8 iyo meelaha soo dhantahay kulli insha Allah ta'ala waa maalintii labaad oo anaga hadda meesha aan gacanta aan ku hayno shalay waxaan soo galnay meesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafijiyay 12 iyo barkii meelaha oo kala u maleynaya ilaa hadda saacadan laga bilaabana anaga waa iska caafimaad qabnaa meeshina anaga gacanta ku hayna adowgiin almurtadiinta algaaladoodeena banaanka naga joogaan kulli xamlo wayda soo qaadi doonaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa sunnaashi iyo shahaado qaalka ayaan weydiisanaynaa dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceeyaan naguna soo duceeyaan mar walba ana inshaa'Allah adiga xitaa ana inshaa'Allah inaan naga gaarsiiso walaalaha muslimiinta in ana inshaa'Allah noo soo duceeyaan يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا لا تبتئس للعدوات والهكه صوبه تقى الناس واحترس صوبه تقى الناس weerarkan barakaysan ee lagu qaaday hotelka Cascasay ee magaalada Kismaayo laguna gumaaday cadowga Allah ayaa ka dhignaa dharbaaxo lama ilaabaan ah iyo guul taariikhi ah oo ay soo dhiciyeen haliyeeyo dhiiran kuna dhagan diintooda oo kamid ah wiilasha islaamka waxaana kamid ahaa Mujaahid Zubayr oo isagoo ku sugan fagaaraha dagaalka aanan iloobin inuu fariin dhiig lagu saxiixay u diro Axmed Madoobe iyo zumradiisa si uu u xusuusiyo inaanu amni iyo nabad ku naalon doonin magaalada Kismaayo intaba ay ka maqan tahay shariicada islaamka kuna damaashaadayo gumaystaha saliibiga iyo dabadhilfiyadiisa kuwaan xaq daran ay Kismaayo horta ka taliye Axmed Madoobe iyo galadiisa waxaan rabaa inay horta ay ogaadaan in anaga aanu nahay dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala maana isu adeeg aankiisa iyo Ilaahay siddiisa ku socda inay ogaadaan Kismaayo insha Allah ta'ala biidhnillah ani awoodey ma aha adoona ka maqtiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala raadiyay saadinayo ayaan ahay aniga tadbiyo ma laakiin tadbiyo Ilaahay biidhnillah ta'ala Kismaayana inta walaalay iga dambeeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadan ka rajaynaya biidhnillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaado isii in sha Allah ta'ala ayna nabad ku soo doonaan biidhnillah ta'ala kan waxay fariin u tahay biidhnillah ta'ala inta gaalada ka soo aragtay muqdisho qaraxyada ka dhacaya ayaa meeshan joogay sameeya ku soo areen nabadgelyo iyo wax ugu soo areen ayaa meeshan ku soo dhuumanayeen waxaan u sheegaynaa in mujaahidiinta meesha soo ay ka karaan
من يأتي مبتهلا إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي صرت متكلا إلهي صرت متكلا إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى